maayirka caasimada gobolka Gabiley ayaa abaalmarinay isugu jira kombiyuutar iyo qalab kala guddoonsiiyay ardadii kaalmaha hore ka gashay imtixaankii shahaadiga ahaa ee ay sanadkani qaaday wasaaradda waxbarashada guud ahaanba Soomaaliland. Waxa kale oo duqa degmada Gabiley mudane Maxamed Aabiin Cumar Cabdi uu shahaado sharaf siiyay qaar ka mid ah macallimiinta iyo maamulayaashii dugsiyadaasi ay wax ka bartaan ardaydu. xafladani oo ka dhacday xarunta golaha deegaanka Gabiley kasoo qaybgalkeedana anigu kala hadhin mas'uuliyiinta gobolka Gabiley ayaa waxa ka hadlay maayirka caasimada gobolka Gabiley mudane Maxamed Aabiin Cumar Cabdi oo ahaa maayirkii ugu horeeyay ee dhiirigeliyay ardaydaasi iyo barasaab ku xigeenka Gabiley Cali Cabdi Cabdilaahi. qof kasta oo dadaalana wadadaas uu mari doona kii aan dadaalina عليها شافعي كوش تاريخي قبل كوسه هوي دكتور إمام شافعي سكندرية ويسوق قبل كل عصب سو هوي كل تاريخية لبا قبله كمية قبل كجسم مدن تاي كارت طلبة إنه أرض كارت كورات قال خل دبيعه قرط كسرية وشرفية كرابة حلنا ينبليو وسكون كقرح سكندري سكون كاسسلو كارت طلبات أرض كل جولستي قبل كسو كذا runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa uga hambalyeynaa ardayga runtii kaalinta lixaad ka galay fasalada 8aad dhammaantood hambalyaan leenahay saddexda iskuul ardaydana waynu u ducaynaynaa ilaahay insha ka badbaadiyo ilaahay aqoonta ku sugo ilaahay runtii ha qarab galo iyo dhammaan ardayda imtixaanaadka ka baxday gobolka dhammaantood hambalyeynaa iskuulada kale iyo ardayda kalena waxaan rajaynayaa insha Allah in sanadkiisa dambe ay ku xiriiri doonaan iyaguna ay ka muuqan doonaan. waxa kale oo munaasabadaasi ka hadlay mas'uuliyiin kale oo dhammaantood u mahadnaqay duqa degmada Gabiley Maxamed Aabiin Cumar Cabdi sida uu dhiirigeliyay isla markaasina uga farxiyay ardaydaasi. weliga ma gaari jirnay heerkaynu gaadhay waarkeen waa kaalintii labaad ee Soomaaliland ugu sarreysay ayaa hal dhibic naga baxsatay hal dhibic markaa Gabiley heerkay gaadhay wuu garanaa ugu mahadnaqayo barayaashii iyo maamulayaashii iska xilsaaray waxbarista ardaydaas ee hariya habeenba soo jeeday. munaasabadani ayaa noqonaysa tii ugu horeysay ee maamuladii soo maray degmada Gabiley ay u qabtaan ardayda kaalmaha hore ka gashay imtixaanka shahaadiga ee Soomaaliland. مختار نوح إبراهيم هون كيبل TV قبل كجبلي.